السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهان تيم باخيار تسيدا توس كعنا ولا سعوتاي هالكني ومجن ميديا أنا قلنا وحنا هاي عبد القادر محمد وأسدي توانكا بشا أكتوبر سنة لبضا كن إيو شان إيا لباتنكا قضبضا أن إذن كوهايو برامج كينان كوبانا وحا كليهين jabhadda lagu magacaabo Fano oo markaasi ka dhaqdhaqaaqda deegaanka axmaarada ee dalkaasi Itoobiya ayaa waxa lagu soo waramayaa in mar kale ay xasuuqiyo waaweyn iyo sidoo kale guulo ay ka gaareen gudaha deegaankaasi dagaal ay kula jireen ciidamada dalka Itoobiya warbaahinta dalka Itoobiya ee madaxa bannaan ayaa maanta waxa ay si isku mid ah u qorayaan warar la xiriira in ciidamada dalka Itoobiya markaas lagu xasuuqay gudaha deegaanka axmaarada waxayna tilmaamayaan in jabhadda Fano ay sidoo kale deegaano hor le ka qabsatay ciidamada dawladda ee uu hogaamiyo Abiy Ahmed kuwaas oo maalmihii u dambeysay guul darooyin waaweyn oo isxigxigay markaasi kala kulmayay jabhadaha ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka Itoobiya si gaar ah jabhadda Fano oo markaasi ka dagaalanta deegaanka axmaarada dhinaca kale wararno Helena ayaa waxa ay tilmaamayaan in ka badan 100 askari maanta oo sabtiga kaligeed lagu laayay deegaanka axmaarada dagaalo markaas ka dhacay gobolada kala gedsan ee deegaankaasi waxayna arintani muujinaysaa awoodda ballaaran ee markaas ay jabhadda Fano ay la soo baxday muddooyinkii ugu dambeysay waana jab kale oo xoog badan oo markaas ciidamada dawladda Itoobiya soo gaaraya muddooyinkii ugu dambeysayba dhinaca kale akhbaaraadkan saaxiibayaal idin la wadaagi doona waxa kamid ah dawladda waddanka Eritrea ayaa maanta waxa ay si adag uga jawaabtay eedeymo markaasi dhawaan uga soo yeerayay dhinaca dalka Itoobiya kuwaas oo ay soo saarayeen saraakiil horay u soo maamushay ama horay uga soo tirsanayd ciidamada badda ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada kala gedsan ee markaasi qalabka sida kuwaas oo si isku mid ah u sheeganayay in dekada casab ay markaasi Itoobiya ay lahayd wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalka Eritrea Yamana Gabre Maskal ayaa war uu ku soo qoray ama bayaan uu ku shaaciyay barta uu ka isticmaalay X horeyna loo oran jiray Twitter waxa uu ku sheegay in dhawaaqyada uga imaanaya dalka Itoobiya ay yihiin kuwa si xoojinaya cadowtinimadii labadaasi dawladood ka dhaxaysay waxa uu dhinaca kale sheegay in madax bannaanida dalka Eritrea loo huray dhiig dhaqaalo waxa uu tilmaamay in xinjiro markaasi dhiiga ay guusha dalka Eritrea lagu aqoonsaday ay ku timiday Eritrea ayaa arintaasi uga jawaabaysay kadib markii dhawaan dawladda Itoobiya saraakiil kamida ay dureen in Itoobiya ay ka noqon karto sidoo kalena ay ka hor imaan karto madax bannaanida dalka Eritrea waxayna saraakiishaasi dawladda Abiy Ahmed ugu baaqeen inay ka laabtaan aqoonsigii ay markaasi siiyeen dalka Eritrea arrintaas oo iyadana la tilmaamay inay culays ku sii siyaadinayso khilaafka sii xumaanaya muddooyinkii u dambeysay ee markaas ka dhaxeeyay labada dawladood ee Eritrea iyo sidoo kale Itoobiya sidoo kale barnaamijkeenan waxaad ku maqli doontaan jabhadda deegaanka Tigray ka dhaqdhaqaaqda ee lagu magacaabo TPLF iyo sidoo kale madaxweynaha deegaankaasi ninka lagu magacaabo Taadase Warada horena u soo maamulay ciidamada TPLF ayaa waxa lagu soo waramayaa inay goradda isku la jiraan waxaana la tilmaamayaa in xaaladda gobolkaasi ay labadii maalmood ama isbuuca aynu soo dhaafnay ay aad u qasnayd waxayna wararka aan ka helayno gobolkaasi sheegayaan in xaaladdu ay u muuqato in hoggaanka gobolkaasi mar kale la bedelo ama TPLF meesha laga saaro qodobadaas ayaan khayr idin kula wadaagi doonaa barnaamijkeenan kooban anigu Cabdulqaadir Maxamed ayaa idin warrami doona idinna waad ku maasantiin daawashadiina iyo la socodka wararkanaga ku soo biir barteena YouTube-ka ee Magan Media oo subscribe ku samee sidoo kale soo follow garay bartaan Facebook-ka ku leenahay si aad ula socoto akhbaaraadka dunida geeska Afrika iyo si gaar ah kuwa Soomaalida oo aanu halkan si maalinle ah markaasi idin kula wadaagno aynu ku bilownay warbaahinta lagu magacaabo Addis Standard oo markaasi kamid ah warbaahinada madaxa bannaan ee ka jira gudaha dalka Itoobiya ayaa maanta waxa ay si rasmi ah u qorayaan in ciidamada jabhadda Fano ay markaasi guulo waaweyn ka gaadheen dhigooda ciidamada dalka Itoobiya kuwaas oo muddooyinkii u dambeysay markaasi ay ku dagaalamayeen gudaha deegaanada axmaarada oo markaasi dagaalo la isku hoobtay si aadana la isu farasaaray ay ku dhaxmareen labada dhinac jabhadda Fano ayaa waxa la sheegay inay qabsadeen deegaano badan kadib
dagaal adag oo markaasi ciidamada dalka Itoobiya ay gobolkaasi kula galeen labadii bilood la soo dhaafayba waxa ay soo tartarayay wararka la xiriira in jabhadda Faano ay ku awood badan tahay gudaha deegaanka Axmaarada iyadoona markaasi la arkay ciidamo tirabeela oo iyagoon dagaalamin isu dhiibaya jabhadda sidoo kale waxa la shaaciyay muuqaalo ay jabhaddu baafisayna lagu arkay saldhigyo military oo gobolka Axmaarada ku yaalay oo si guudba ugu gacan galay ciidamada jabhadda Faano kuwaas oo markaan u muuqda inay Abiy Ahmed kaga adkaan karaan mar labaad gudaha deegaanka Axmaarada mar ay ahayd inay inta ugu badan magaalooyinka waaweyn iyo gobolkaasiba gacanta ku dhigeen iyadoo magaalooyinka la qabsaday ay kamid ahayd magaalada caasimadda oo ah gobolka Axmaarada ee lagu magacaabo Baardar iyo sidoo kale magaalada taariikhiga ee Gondar kuwaas oo ah meelaha muhiimka u ah gobolkaasi waxaana sidoo kale ay jabhaddu markaasi gacanta ku dhigtay garoomada waaweyn ee ku kala yaala Gondar Baardar iyo sidoo kale magaalada Lalibela oo iyaduna kamid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi si gaar ah ugu suntan inay dalxiisayaashu halkaasi booqdaan maadaama taariikh hore oo Itoobiya iyo sidoo kale diinta Masiixiga ay halkaasi ku duugan yihiin sida la sheegay haddaba warbixin ay qoreen ama ay soo saartay warbaahinta laga leeyahay dalka Jarmanka oo lagu magacaabo DW ayaa sheegtay in xoogga Faano ay la wareegeen deegaano dhowr ah kuwaas oo ku yaala gobolka Axmaarada kadib dagaalo cusub oo ay la galeen ciidamada dawladda dalka Itoobiya oo markaasi halkaas ku wada dagaalama iyadoo la soo xiganayo dadka deegaanka ayaa waxa ay warbaahintani tilmaantay in jabhadda Faano ay markaasi warisay inay qabsadeen deegaano badan kadib dagaal iyaga iyo ciidamada Itoobiya ay halkaasi ku wada dhexmaray kuwaas oo muddooyinkii u dambeysayba isii laba jibaarayay jabhadduna ay sameeynaysay iska caabin ballaaran oo ay kala hortagayso gudaha ama ciidamada dalkaasi Itoobiya qof degan magaalada lagu magacaabo Jajeho oo ku taala isgeeska u dhaxeeya ama meesha ahba kala qaybisa gobolada Gondar iyo sidoo kale gobolka lagu magacaabo Wallo ayaa sheegay in dagaalyahanada Faano ay hadda gacanta ku hayaan magaaladan Jajeho oo isagu markaas ku sugan yahay sidoo kale magaalooyinka ay jabhaddu gacanta ku dhigtay ciidamadana laga saaray ayaa waxa uu ninkaasi la wareystay ku sheegay Jarejo sidoo kale magaalada lagu magacaabo Aflakit ayaa iyaduna kamid ah deegaanada la qabsaday waxa uuna dadka deegaanka ee markaasi warbaahinta Jarmanka laga leeyahay la hadlay u sheegay in ciidamada jabhadda Faano ay sidoo kale qabsadeen deegaanada ku hareeraysan magaalooyinkaas waaweyn ee markaasi bartamaha gobolka Axmaarada ku yaala waxaana la sheegay in arintaasi ay muujinayso awoodda markaas jabhadda Faano ay ku dhexleedahay gudaha deegaanka Axmaarada ciidanka difaaca qaranka ee dalka Itoobiya ayaa boggaga rasmiga ah ee baraha bulshada ku sheegay in guutada lagu magacaabo ama guuto ka tirsan ciidankaasi oo gobolka Axmaarada ay jooga ay bilaabeen howlgallo ka dhana waxay ku tilmaameen kooxaha xagjir ah oo lagu eedeeyay inay khalkhal gelinayaan amniga bulshada isla markaasina dhac iyo boob ka wadaan magaalada lagu magacaabo Mersa iyo sidoo kale nawaaxigeeda kuwaas oo ku yaala gobolka bariga deegaanka Axmaarada ku yaala ee lagu magacaabo Wallo sida ay sheegeen ama lagu sheegay bayaan ay ciidamada difaaca qaranka Itoobiya ay soo saareen taliyaha guutadaasi ayaa sheegay in dhowr xubnood oo kooxdaas hubkooda iyo sidoo kale qalabkii ay wateen bal qabtay bayaanka ayaa intaas ku daray in dadweynaha degan ama deegaankaasi degan ay muujiyeen taageero iyo midnimo ay la garab taagan yihiin sida ay ciidanku sheegteen iyagoo ballan qaaday inay garab istaagi doonaan ciidamada ammaanka sida ay ula dagaalamaan kooxaha xagjirka ee ay sheegeen inay cadawga ku yihiin deegaanka Axmaarada waxaana arintaasi dabcan baahiyay nuqullo kamidana ay ahaayeen war ka soo baxay xafiiska taliska guud ee ciidamada difaaca qaranka dalka Itoobiya kuwaas oo muddooyinkii u dambeysay ka aamusnaa guulaha waaweyn ee markaasi ay gaadhayso kooxda Faano oo ka dhaqdhaqaaqda gudaha deegaankaasi dhinaca kale kooxda Faano ayaa la tilmaamay in labadii maalmood ee la soo dhaafayba laga soo bilaabo Khamiis Jimco iyo Sabti oo aynu joognaba inay dileen in ka badan 100 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda kadib dagaalo culus oo ka dhacay jiida gobolka Raaya ee deegaanka Axmaarada sida la sheegay jiida uu dagaalkaasi ka dhacay waxa ku yaala baa leeydi ama ay ku taalaa bariga gobolka Axmaarada gaar ahaan gobolka Wallo iyo sidoo kale waqooyiga iyo dhinaca koonfureedba waxa la tilmaamay inay dagaaladaasi isku mid uga socdaan taliska jabhadda Faano oo lagu magacaabo Mililik Command
oo gobolkaasi ka dhaqdhaqaaqa muddooyinkii u dambeysana guulo waaweyn ka soo hooyinayay dagaalada ay kula jiraan ciidamada dowladda ayaa sheegay inay kula jiraan ciidanka dowladda 6 jiho dagaal ka socda oo ku yaala deegaankaasi iyagoo arintaasi ku tilmaamay in ciidamada dowladda ay isu qaybiyeen sidoo kalena jihooyinka ay ka soo weerareen ay u badiyeen taasoo la tilmaamay inay markaasi u fududeysay jabhadda Faano inay ciidamada meel dhex geliyaan si ay markaasi uga takhalusaan ciidanka difaaca qaranka Itoobiya ayaa dhinaca kale wali aan ka hadal sheegashada cusub ee jabhadda Faano ay ku sheeganayso inay markaasi ku dishay askartaas boqolaalka gaaraysa sidoo kalena sheegashada ay ku sheegatay inay deegaano hor leh ay ku qabsatay ayaan ilaa iyo hadda wali waxaan ka hadlin ciidamada dowladda sida lagu sheegay warbixinada kala gedsan ee markaasi warbaahinta dalka Itoobiya ee sida gaarka u warama markaasi ay qorayaan saaxiibayaal waxaad moodaa wali inay socdaan dagaalada u dhaxeeya jabhadda Faano iyadoona dhinaca kale ay jiraan in jabhaddu ay markaasi ku awood badan tahay isla gobolkaasi dowladda ayaana muddooyinkii u dambeysay lagala wareegayay gobolada iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi uu ka kooban yahay qaarka u badan si gaar ah gobolka Wallo Goojam iyo sidoo kale gobolka Gondar waa meelaha ugu badan ee jabhaddu ay markaasi ka sheeganayso inay guulo waaweyn ka gaadhay aynu ku sii soconne dowladda Eritrea iyo sidoo kale Itoobiya xiisadoodu waayahan u dambeysay ma dhamaato warkooduna ma soo abjarmo waxaana muuqata in marba markasi dambeysa loo sii dhawaanayo in markaasi labada dowladood ay xadkooda ku dagaalamaan iyadoo dowladda Itoobiya ay tahay midda sida cad inta hadda la arki karaba daandaansiga ugu wada dalka Eritrea kuwaas oo ay ku doonayso inay ku qabsato dekada Casab oo markaas ka tirsan dekadaha dalka Eritrea ayaa maanta war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay digniin ugu dirtay cid kasta oo dowladda Itoobiya taageeraysa iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed kuwaas ay ku tilmaameen inaysan caano qabow ka soo horeynin waxayna sheegeen in xornimada iyo madax bannaanida Eritrea dhiig iyo dheecaanba ay u hureen shacabkoodu haddaba wasiirka wasaaradda arrimaha aan ilaahay warfaafinta dalka Eritrea ninka lagu magacaabo Yamane Kabramaskal ayaa si adag uga jawaabay eedeymo cusub oo ay faafiyeen kooxo uu ku tilmaamay inay yihiin kooxo aan lahayn mabda iyo sidoo kale qiyam rasmi ah kuwaas oo sidoo kalena dabcan falanqeeyay sibaabiha ay dowladda Itoobiya ku heli karto marinbiyood ku yaala baddaas si gaarana dekada Casab uga hadlay maalmihii u dambeysay jeneraal Olay ciidamada dalka Itoobiya uga mid ahaa ayay warbaahinta dowladdu wareysanaysay kuwaas oo laga wareysanayay sida ay Itoobiya ku heli karto marinbiyood iyo sida ay ku gaari karto dekada Casab oo markaas ku taala baddaas arintaas ayaana Eritreanka markale ka soo xanaajisay in wasaaradda arrimaha warfaafintana ay ka hadashana keentay waxaana nimankaas lagu tilmaamay inay markaasi ku sifoobeen hadallo been abuura oo aan waxba ka jirin waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha aan ilaahay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalka Itoobiya Yamane Kabramaskal waxa uu sheegayaa in ay halgan iyo sidoo kale xornimo doonka Eritrea uu ahaa mid ay kicisay oo ay maalgeliyeen markaasi shacabka iyo sidoo kale dadka Eritreanka waxa uu arintaas uga soo horjeeday markii saraakiil ka tirsan dowladda Itoobiya ay si cad u sheegeen in dalal reer galbeedka kamid ah ay markaasi Eritrea ku riixayeen in la aqoonsado Itoobiyana markaasi dhinaca Eritrea ay ka sheegeen waxa uu leeyahay dalal shisheeye annaga nama caawin sidoo kalena dalal shisheeye waxba nagama tarin guusheeda madax bannaanadayada annaga ayaa ka shaqeynay sidoo kalena annaga ayaa Itoobiya markaasi kala dagaalanay Yamane Kabramaskal wasiirka warfaafinta Eritrea oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa X oo hore Twitter loo aqoon jiray ayaa sheegay in eedeymahaas yihiin been iyo sidoo kale maran habaabin waxauna sheegay in isku day kasta oo lagu burburinayo taariikhda geesinimada leh ee Eritrea ay noqonayso mid ugu dambeyn fashilanta sida uu hadalka isagu u dhigay waxa uu dhinaca kale tilmaamay in Eritrea ay u diyaarsan tahay dagaal kasta oo dalkooda lagu soo qaado sidoo kalena waxa uu sheegay inay difaaci doonaan dhulka badda iyo sidoo kale markaasi hawadoodaba intaba waxa uu yiri Eritrea waa dal madax bannaan waxayna u dhaqmaysaa sida dal madax bannaan caalamkana waa laga aqoonsan yahay dhulkeeda iyo dadkeedana iyada ayaa wax laga weydiinaya xornimadoodana iyaga ayaa ilaashan doona Eritrea waxa uu sheegay inay ku guuleysatay kaligeed dagaaladii ay Itoobiya la gashay ee uga qaadatay xornimadeeda sida uu sheegay iyadoo la dagaalantay buu yiri nidaam xoog leh oo ay mararka qaar taageersanayeen labada dowladood
ee xilligaasi ugu awoodda badnaa waa Mareykanka iyo sidoo kale midowgii Soviyeeti iyo xulafadii xilligaas dagaalkii qabowba ayuu sheegay wasiirka warfaafinta dalka Eritrea Yamana Gabra Masgal oo markaasi warbixin dheer oo saraakiil Itoobiya hadashay markaasi ugu jawaabayay xiisada ee u dhaxaysa labada dawladood ayaa marba markaasi dambeeyay sii taraysa iyadoona xiisadu ay sii xumaatay kadib markii dawladda Itoobiya ay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres u gudbisay waraaqad ay ku sheeganayso in Eritrea ay hubeynayso sidoo kalena ay taageero ballaaran siinayso jabhada markaas dalka Itoobiya ka dhaqdhaqaaqa kuwaas oo si gaar ah loo tilmaamay jabhada TPLF iyo sidoo kale Tanfaano oo markaas Eritrea lagu eedeeyay in ay iyagu dabada ka riixayaan oo ay markaas dawladda Itoobiya iyo amniga dalka Itoobiya baqalaasa ku yihiin arintaas Eritreaanku waxa ay ku tilmaameen inaysan waxba ka jirin sidoo kalena arrimaha Itoobiya aan waxba laga weydiin karin dalkoodana ay ka difaacanayaan cid soo weerarta Itoobiyaankana waxa ay ugu baaqeen iyo Abiy Ahmed ba inuu isagu dalkiisa iyo dadkiisa u horseedo wax ammaan markaasi ay ku naaloodaan saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkan kooban anigoo Cabdulqaadir Maxamed ayaa idin la socodsiinayay waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo la socodka barnaamijyadeena haddii aad nagu cusub tahay kusoo biir barteena YouTube-ka ee Magan Media oo subscribe ku samee muuqaalkana la sii wadaag saaxiibada sidoo kalena like garay si uu meel dheer u gaaro inta aan ku kulmi doono warbixinteena xigta nabadgelyo